بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaanba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku yeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah uu oofiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. Soomaaliyeed ummadda Ilaahay shar lama jeclaado, dhibkoodana lagama shaqeeyo. dadka Soomaaliyeed iyaga dhiban, gaar ahaan Soomaalida Mareykanka degan, gaar ahaan reer Minnesota, in loo naxariisto oo loo turo oo loo hiiliyo xaq bay ku tahay qof kasta oo Soomaali meel uu joogaba. in iyaga dhibkooda laga shaqeeyo, maxaa lagala kulmaa dadka masaakiinta oo madluumka ah markaa dulmisid, waxaa soo baxaysa dhib inuu Ilaahay kugu salladaadiyo. wiilkan yarka ah hadda ka hor isagoo gaalnimo ku hadlaya hadalla gaalnimo ah, Ilaahay waa nin waa ay dhibtay, waa ay baadar garsay, aad bay ii dhibtay Ilaahay inuu nin yahay. adeer Ilaahay inuu nin yahay yaa kuu sheegay? yaa ku yiri Ilaahay waa nin Ilaahay lama dhihi karo iyo naagtoona subxaanahu wa ta'aala. horta taas diinaadan aqoon weyn ku baraye baro. Ilaahay nin iyo naag cid ku sheegi kartaa ma jirto. midda kale, ambiyadu inay niman yihiin maxay kuu dhibaysaa adeer? waxaan kaa difaacay ummad ku gaalaysiinaysa. waxaan dareemay inaadan diinta waxba ka garanayn, inaan nin miskiina oo caama tahay baan kugu difaacay. jahliguna cudurdaarada muctarafka ah ama laysku raacsan yahay buu ka mid yahay, inuu yahay cudurdaar yani maqbuul ah. afar shay oo la aqbalo qofka loogu raadiyo cudurdaar baa jahligu ka mid yahay. marka inaad jaahil ka tahay oo diinta aadan garanayn baan kugu cudurdaaray. waxaan kaloo arkay adigoo dadka Soomaalida oo Minnesota jooga caayaya. waad socotay wiilal right wing ah oo Soomaalida neceb, oo dadka muslimka neceb, oo soo galootiga neceb baa dalaq u tiri. duqsi duldul badan baa leeyahay, food kulul buu ku istaagaa aakhirkiisa. waxay kaloo yiraahdaan maahmaahyo badan baa iiga ka muuqda. man jarra dhuyula naas jurra dhaylu. qofkii dadka saynta jiida isna saynta la jiida. ma ujeedaa? waa intaad geysatay fakamaata diinu tudaan, dadka saa ula dhaqantaa lagula dhaqmayaa bay yiraahdaan. waxay kaloo yiraahdaan people in a glass house never throw rocks. dad guri qarshaa ku jira dhagax ma tuuraan. adeerow adoo kan ah nin gaala garabka haysta, waxa uu kugu hoos qortay inaad u jeedid housemate inaa u tahay, oo kugu qortay inaad dad Soomaaliya u farabaxsatid maahay. waxaan la yaabanaa guri baan leeyahay maxaa Soomaalida oo dhan baa guriga leh? maxay macno leedahay guri in la yeesho? maxay significant? dadka Soomaalida oo dhan baa guriga leh. waa garanayay guri baan leeyahay inaadan guri lahayn waa filayay. ninkaa gurigaas aad ku jirtid Peter Hines, wiilashii dhalinyarada ah reer Minnesota aad ku edab darootay intay kuu daateen bay dibadda ku soo dhigeen. main gurigaas aad joogtid aa leedahay guri ruralka ku yaalan degana, housemate baad u tahay ninkaa. waxaana lagugu hambalyeynayaa inaad partner fiican tahay oo enjoy each other's company baa la leeyahay. ninkaa gurigiisa 1992 buu gatay, 1.7 million buu ka bixiyay. dhalinyarada ah real estate ka shaqaysan jiray baad offend garaysay oo edab darro ku samaysay, markaasay kusoo tuureen dibadda kusoo dhigeen. housemate laba tafsiir buu leeyahay. laba qof oo guri wada leh ama wada kireystay oo isla degan waa la yiraahdaa. laba qof oo uu ka dhaxeeyo xiriir na waa la yiraahdaa. gurigan ma aadan gadan oo magacaaguna kuma qorna. taariikhda guriga marka la soo qoro sidii loo kala horeeyo loo kala gatay baa la sheegaya. ninkaas uu xilligu gatay 1992 bay ahayd. 1992 waddanka ma aadan joogin. 500 kun baan guri kala baxay baad matay. buug baa 500 kun liiga siiyay. waagaa buugga qortay oo 500 kun lagu siiyay waa horey ahayd. haddaa dhaqaale haysatay maxaa u lahayd hooyaday lacag loo aruuriyo? marka uu housemate ku qortay gurigaan la leeyahay, guri baan leeyahay aad leedahay, the only way ku yeelan kartid inaad partner noqotid housemate kaas aad noqotid. markaa dee
labada qof haddii North America sanad wada noolaadaan common law baa la yiraahdaa guriga qayb baad yeelan 50% baa yeelanaysaa maybe inta inaa sheeganaysid lacagta sheeganaysid inay inta tahay iyo guriga lahaanshaha sheeganaysid waana nasiib daro adeerow Soomaalida dhibaata haysata intaad Fox News tagtid oo lagugu qoro refugee inaad markaan ku lahaa inferiority complex baad qabtaa oo iga ka muuqata useful idiot baana tahay useful idiot waxa la yiraahdaa qof shaqadiina qabanaya aan ogeyn in lagu shaqeysanayo doqon la isticmaalayo raran baa tahay oo cid u raran Fox News inaad inta tagtid haddana aad soo gasho tiraay waa soo saara Soomaalidan soo saara Soomaalida xaq soo saaraysa maxaa ugu diganaysaa dadkaas khaladka galay oo kontomeeyada ah oo la xirxiray maxaa ugu diganaysaa maxaa si Soomaalida kale oo dhan u najaasaynaysaa maxaa ummadda u caayaysaa boqolaal kun baa jooga oo Soomaali ah oo Minneapolis iyo areadeeda iyo Mareykan ka shaqeysta waligoodna aan cayr qaadan nool oo shaqeysto ganacsiyo leh ummadoo dhan baa gaaladii baa qiraysa akhri Dr. Bruce maqaalka uu ka sameeyay akhri Soomaalida $8 billion bay ku soo daraan dhaqaalaha Mareykanka iyo dhaqaalaha Minnesota state-ka kaliya marka dadka inaad jaa'ifaysidood madaxda iyo ma garanaysaa midda kale dadka madaxda ah oo dimuqraadiga ah Soomaalida marar badan baan u sheegay waliba kuwan isaga ka nacamleynaya waa dad masaakiin oo Soomaaliya joogaan warhayn luqadda Ingiriiskana aan fahmayn culture-ka iyo dhaqanka meesha ka jiran aan garanayn ba isaga ka nacamleynaya ku orday leero ka fariiso ummadda Soomaaliyeed ka fariiso mar dambana ummadda Soomaaliyeed arrimaheeda ha gelin dadkana ha caayin akhlaaq yeelo toobad keen oo Ilaahay u noqo waxaan aad ku jirtid oo sawirkan ka muuqdana iskaga bax nin garabka haysta Mareykan waa la yaqaan wuxuu yahay iskaga bax ka toobad keen Ilaahay u soo noqo mawjeeda naag malihi naag la yiraahdo adoole baan arkay naag raadso guurso orod shaqo tag shaqo caadi doono ma aha shaqo inaad dadka caydo waflagaada la soo fariisatay ma ogtahay Soomaalida Mareykanka joogta hadalkaagaas inta qof lagu dhibaateynayo ma ogtahay dib runa inay dad gaarayso ma ogtahay oo familiye ah oo la kala dad la qafaalayo oo qaar la xirayo gabadha la qaawiyo 24 saacadood la haystay oo Soomaalida dibka loo geystay ku xanuujin maayo miya wada Soomaali ahayn dub iyo diir ma wadan lahayn maxaa ka khaldan buugaaga waxa ku qoran oo banaanada la soo warwareejinayo bayjajka naloo soo dirayo iyo waxa aad tahay wallaahi wax la yaab la tahay ee cagaha dhulka dhigniyo wadadii ayaan xirsibaad haysaa ka sokeyn maysid labaad mid ku dhamaanaysa ama ayaan baad ku dhamaanaysa ama waa toobad keenaysaa nin rag oo isqabtaad noqonaysa qofka ninka ragga uu khaldama isqabta oo soo laabta Ilaahay mar walba toobada waa goliya intaan la dhiman ama aan qoraxdu galbeed ka soo bixin toobadu waa ku furan tahay toobad keeniyo kana xishood ummadda kana fariiso kuwa ku amiraya oo la qabyaalad masaakiin baatiin waa la idinku awrkacsaday qabyaalad maxay tahay qabyaalada ninka lagu ciirsanaya boqolaal kun oo nin oo isaga la mid ah jooga oo ummadda ugu fiican ugu sharaf badan la qabiile ma la ciirsado midda kale isaga garaacaya qabiilka durbaankiisa si uu idinka faa'iideysto oo qaar idin kala qaybiyo it's him dad badan baa diidan waxa uu sameeyo nooc kastana qabiil kastana leh kuwa badan baana taageersan oo qabiil kasta leh marka khaldaminina qabyaaladan waa meesha ay siyaasiyiintu idinkaga faa'iideysteen nin kasta oo raba inuu idin dulmiyo wuxuu idinku awrkacsadaa qabyaalad markaas hor orodaan idinku xayawaan oo dhagal qabta lahayn qabiil muxuu tara muxuu macnuu leeyahay qabiil wax macnaa male wax faa'iido aad ku qabtid qabiil ma jira gaaja kugu haysa waad ku rafaadsantaa idinkoo dhan marka iskaga hara kuwa u nacamlaynayo oo qabqablo meelahaas hadba naloo soo dirayo iyagoo difaacaya oo isagu soo galgashanayo shame on you waxay idinaan aqoon baad hor ordaysaane cagaha dhulka dhiga oo isku xishooda waa loo daatay waa kaas ilaa aakhira la socday ninkaas markii uu ninkan keensaday oo housemate-ka buu ii yahay lahaa September 2022 June 2023 oo sanadkii ku xigay ah wuxuu soo gashaday calaamadaas inuu khaniis yahay soo gashaday bold statement for the right waa weer buu yiri ama hadal adag buu yiri kulul oo dadka midigta ah loogu talagalay
midigtu waa kuwii wadwatay isaga oo meelaha la marmarayay kuwa midigta loogu talagalay inay ka xanuunsadaan khaniis buu ku dhegsaday cali calankaas meesha ku dhegan yahay khaniiska ah weeye kan uu ku soo sawirtay calanka soomaaliga markuu midhaawado guriga ka maqan yahay ma garanayno intaa hoose ma garanayno oo gurigaas gudihiisa wax ka socda war kama hayno laakiin intaan ceeb iyo fadeexad wey wax u haray ninkaa oo dambe oo hadal ima jiraan kuwiinii daba ordayey cid buu khaniis ku caayayay khaniisiyay taageeraan dadka siyaasiyiinta ah aan kelmadda idinku khatimo dhaqanka kuwiinaan aqoon oo aan North America joogin markaad noqotid siyaasi waxaad matalaysaa constituency wax la yiraahdo ama xaafadda qof kastoo degan waxaa kaa saaran xil diintuu rabo haysan karaa waa wada gaalo khaniis iyo gaal yaa fog dembi gaalnimo ka fog miyaa jira gaalaad difaacaysaa gaalnimadooda u difaacaysaa waxaan arkayay gabar mayor ah isagoo ku haysta oo ka ah mayor Maine oo le kaniisad bay tagtay kaniisaddu constituency-geeda hadday ku taalo waxay ku khasban tahay inay tagto oo danahooda iyo dhibaatada ay sheeganayaan dhegaysato oo markaa u qareento waxaad xilka u haysaa muslim maaha waa muslim iyo gaalo labadaba waa cid kasta waa khaniis waa qof madow waa qof cad waa qof caataa waa qof madow cid kasta wey ma ujeeda marka qoladiinaas xaggaas waddankaa ku nooloo muslimiin keliya la nool ma fahmi kartaan waxaan haddii u fiirisaan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam dowladdii uu ka tirsanaa wasiirka maaliyadda ka ahaa dowlad gaalo ah oo nin caabuday ahayd nin baa la caabuday isaguna nebi ilaahay buu ahaa subxaana wa tacaala calayhi salaatu wasalaam ma ujeeda marka waxaan ma garanaysaa waa masalo daqiiqa oo fiqiya oo culimmadu ay ka hadashee idinku cagaha ka dhiga iyadu constituency ay matashay u tagtaye adigu yaa matashaa markaad kaniisadaha ku wareegaysa waxaanse maxaad ka leedahay markaad leedahayse waa lay dilaya maxaa lagu dilaya imisaa khaniis jooga yaa kala jecel khaniisyada Toronto nin Soomaaliya madax ka cid kala jecel ma jirto aday ku dhibaysaa khaniisnimadu ciday dhibayso kale ma jirto maxaa lagu dilaya waxaad raadinaysid iyo meesha u socotid iyo meelaha ay sida lagu isticmaalayo lagu use gareyn Soomaalida in la ceebeeyo la caayo baa lagu isticmaalaya Soomaalida dhowr boqol oo milyan oo dollar baa dad gashay dadkiina waa xiran yihiin maxaa Soomaalida inteeda kala qosay caruurtaan la jiijiidayo ay jiijidayso mas'uuliyad baa kaa saaran ilaahayna waa kugula xisaabtamaya idab darrada aan ku hadashay xalay wixii maanta lagu dhibaateeyo ilaahay waa kugula xisaabtamaya anigu intaasaan ku oranayaa niyow toobadkeen dadkana ka fariiso khaniis buu cid ku caayayaa guriga uu degan yahayna waa kaas ninkii lahaabaa soo dhegsaday isagana wuxuu ku soo qortay housemate maxaan kuu qaban karnaa I really wish in lagu difaaci karo laakiin laguma difaaci karo intaasaan oranayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh